halkani waa saylada xoolaha magaalada Burco oo kamid ah sayladaha ugu dhaqdhaqaaqa badan Geeska Afrika waana saylada laga dhoofiyo xoolaha ugu badan ee ka dhoofa dekada magaalada Berbera sayladan oo uu ku tiirsan yahay boqolkiiba 90 dhaqaalaha soo gala gobolkan Togdheer ayaan dhaqdhaqaaqeedu aad u shaqeyneen muddooyinkii u dambeeyay taasoo ay sababtay markii wadanka Sacuudigu joojiyay xoolihii ay ka dhoofsan jireen dekada magaalada Berbera haddaba bulshada ka ganacsata xoolaha nool ayaa telefishinka Ariel uga warbixiyay saameynta ay ku yeelatay markii wadanka Sacuudigu joojiyay dhoofinta xoolaha nool waxaana xukuumadda Soomaaliland ku wargeliyeen bulshadani in beec labaad loo baadi goobo kala iibsiga xoolaha nool maadaama bulsho badan ku tiirsan tahay xoolahani xooluhu way yaryihiin warankiina wadiga arkaysa daaxwaanu iibinayna iminka geel waa badan yahay xooluhu waa xidhan yihiin orgida oo saleebsada orgi waa baa lagu iibsadaa orgidana Djibouti waa loo qaadaa marka xooluhu waa xidhan yihiin xukuumadda waxaan ku codsanaynaa inay xoolaha suuq u doonto oo suuq u raadiso oo suuqa Sacuudiga ee xoolaha loo qaato u raadiso neefdaneedka safarka waa la keensanaya waa la iibinaya waa la kala iibsadaa laakiin xooluhu waa iska xidhan yihiin ko ariga Djibouti baa loo dhoofiyaa waxa la leeyahay orgiga Djibouti baa qaadataa warankaana hilib baa loo iibsadaa 800 ku tabala siistaa imika waxaan ka codsanaynaa xukuumaddu hadday u taakasho in xoolaha Djibouti oo joogan laga rajo qabaa inta Ramadaanta ka horeysay in xooluhu ay ka dhoofaan Berbera oo taraaga dheer Djibouti laga raysto xukuumadda waxaanu fariin u diraynaa dadkii doortay waa dadka masaakiinta tabcaanka neefkii ku noolaa neefkii abaarta uga soo haray Djibouti marka loo raro $20 baa raacaya $20 raacaya dadka reer miyiga baa laga jaraya ninkii baa mushtarka wuxuu ku xisaabtamayaa neefkii halka qiimo ku tagay xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inay ka hawl gasho oo sidii xooluhu Djibouti uga dhoofi lahaayeen ay ka hawl gasho marka kale waa kaliishina kale waa ugu yaraada inkastoo abaara dhaceen abaara aad iyo aad dhacay haddana xoolaha waa la keenaa waa la kala iibsadaa waa la sii kala iibsadaa dawaan ku wanaagsan ma sha Allah dawaa hay Ilaahay bana ku xidhan tahay arigii ma dhadurba uu soo kacay hadduu soo kacay arig waa la iibsadaa marahmin baa loo iibsadaa daabax baa loo iibsadaa dhaqan baa loo iibsadaa intaba waa la iibsadaa anana waa ka faa'iidnaa dhaqdhaqaaqeedu saaka waa khamiis arigu waa maalinta ugu wacnaa ee la iibsan jiray ariga shilisa qaaliga waa la iibsanaya wixii xoolay ma waxba baarimayaan adigu saaka geelu waa farabadan yahay xagga iibkiisuna waxaad moodaa inuu hoos u dhac badan ku yimi tusaale ahaan neefkii 700 ahaan jiro kale 600 iyo xoogay buu maraya neefkii 600 ahaan jiro 500 buu maraya adigu taa sababteeduna waxa weeye geelo oo aad iyo aad suuqiisu isugu soo dhacay oo 4 kun bay isaga yimi geelo oo kale imanka waxa weeye neefka ugu qaalisan 600 buu maraya geelo oo kale imanka ugu hooseeyana ilaa 400 ilaa 500 ilaa 300 inta ay tinkaba u leeyahay hadii ay intaasi jirtana imanka geelan waxa lagu cunayaa Burco gudaheeda meel loo qaadaa ma jiro dadkii reemiga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaana aad buu uga hooseeyaa sixirkiisu tii arigana weli ma bilaaban inkastoo la leeyahay ilaa iyo Rabalaan baa wax la filayaa ayuu furmayaa geelaasa indhaweyd basocday geelaana dee waa la iibsanayaayo maalinba waa sicirka neefba waa sirartiisa dee marka ilaahayna wataa nimcuuna siiyo meelba waa tan barwaaqada jiifto saaka waxaan ka waramayaa xoolaha inay qaali aad u yihiin sicir barku inuu aad kor noogu sii socdo oo aan marna hoos u degayn waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland sicir barkan inay joojiso wax laga qabto waxaanu ka hadlanaa wax weeye wax kale oo dhib oo kale ma jiraan dhibaatada day haysata populationka oo dhan mooyaan arigiyo taagan oo dawlad la'aan day haysato wax weeye wax dawladahooda u hadlayaan inay jirin some stationkii yar aynu haysanay wax weeye halka waa tan gaadh weydii dollarkina waa kacay saylada magaalada Burco oo ahayd sayladii ugu dhaqdhaqaaqa badneyd Geeska Afrika isla markaana xoolaha ugu tirada badan laga dhoofin jiray ayaan hadda dhaqdhaqaaq sida u sii badan aan lahayn maadaama ay meeshii ka baxeen ganacsatadii Sacuudiga u dhoofin jirtay xoolaha nool waa Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker